بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ود السلامي ولا راح channel كنا كحر الصومال كوكنا culture انتي هبينو تهبي وناكسن انتي مالو تيني مالو وناكسن كور كستا إيه كوب كستينو تشوفنا الله سبحانه وتعالى خير بينو يدسنينا لما ولا له هو محد سنتهين انتي نهار نول السعتي إيه انتي نهدا عسبين وصبير تيبا انتا كبعد ولا ليالو ما شاء الله ما انتم حين قاعد لنا ما انتم حين قاعد لنا تمرتو شيء عاد فائدة بدن أما جيد عاد فائدة بدن bisha rabadaana aad iyo aad aynu isticmaaleyno u cuno toban faa'iido oo ay leedahay oo aan ka soo akhriyay ama ka soo xigtay qoliyaha caafimaadka gaar ahaan nutritionka dadka yacni nafaqada cuntooyinka bartay iyagu haddaba intaynaan gelin walaalayaal waxaanu joognaa maalmo dambeeyay shabcaan Allah subhanahu wa ta'ala horta waxaynu weydiisanaynaa inuu bisha rabadaan khayr inagu gaarsiiyo caafimaad inagu gaarsiiyo nabad qab inagu gaarsiiyo Allah subhanahu wa ta'ala markaynu gaadhayna ku ka faa'iideysto Allah subhanahu wa ta'ala inaga dhigo kaliya gaajo aan kaga faa'iideysan laakiin amal wanaagsan kaga faa'iideysta ee carabkooda soomiye ee indhahooda soomiye ee gacmahooda soomiye ee lugahooda soomiye ee qalbigooda soomiye wax kasta meel kasta xubin kasta jirkeeda kamid ah ka soomiye waxaanu Allah subhanahu wa ta'ala raali ka ahayn waayo waxa laga yaabaa intaynu afka xidhno inaynu cuntada iska joojino dabeetana inaynu kun wax oo kala xaaraana oo ka sii daran cuntada la joojiyay inaynu sameeyno marka Allah subhanahu wa ta'ala haynaga dhiga kuwii soontu siday tahay u qaata oo siday tahay uga faa'iideysta Ilaahay idankiisa insha Allah ta'ala soonta iyo soon kala badan Allah subhanahu wa ta'ala haynagu gaarsiiyo cimri Ilaahay idankiisa dheer oo khayr qaba iyo caafimaad iyo nabadgelyo Ilaahay idankiisa meel kasta inuu joognaba waxaan rabaa insha Allah ta'ala maanta inaan toban faa'iido oo ay timirtu leedahay insha Allah ta'ala aan inoo soo qaado waxa laga yaabaa guri kasta inay iska taalo inaynu iska soo iibsano inaynu yacni mararka qaar iska cuno mararka qaar intaynu iyadii iska weydaarano wax kale oo caafimaad darro faa'iido darro inaynu ka dheregno oo sonkor iyo qashin iyo wax kale oo aan loo jeedino nafteena dhibaato gaarsiinaya timirtii halkan ku taala oo waxaan ku ma sha Allah faa'iidadeedan la soo koobi kareyna inaynu iska weydaarano faa'iidada koobaad haddaan soo qaado timirtu waxay ka duwan tahay calool istaaga calool waxaynu ognaysaa rasuulkeena cali salaatu salaam inoo sheegay dhaqaatiirtuna inoo sheegtay cudur oo dhan inuu caloosha ka bilaabmo qofka calooshiisu hadday taagan tahay oo qashinka Allah subhanahu wa ta'ala ugu talagalay jirka inuu iska soo saaro oo isku taago dhibaatadeeda badanaysa marka calool istaaga timirtu waa ka dawo qofka timirta badsada inta badan calooshiisu waa nadiif weyn qashinku ka soo baxaa talabaad waxay tahay timirta faa'iidada labaad laga helaa wax weeyaan jirka sunta ka saarta jirka marka la sunta ka saarta jirku sidoo sunta u qaata jirku si badan buu imka sunta u qaata birgor waxa laga yaabaa ee dhulku nadiifta aha ee baabuurtu jiri jirin ee mashiinadu jiri jirin ee qiiqan iyo waxan isdhexyaacay aanay jiri jirin qofku sunu afka ka cabown oo jirkiisa gashun inay sunayn jirtay laakiin imka talaabadaynu qaadnaba waxaynu neefsanaynaa hawo yacni qiiq ku jiro qiiqa marka inoo raacaya hawada aynu neefsanayno aynu qaadanayno hoos u jiidanayno ayaa laga yaabaa in jirkeena sunni kaga hadho marka timirtu waxyaabaha ka soo nadiifiyo weeyaan tasaddexaad timirtu waa cuntooyinka maskaxda u fiican qofka timirta badsada aad buu u wanaagsantahay ma sha Allah maskaxiyan ugu fiican tahay imika waxaynu arkaynaa waayahan dambe qof aan 50kiiba gaadhin ama 60 ba dhaafin oo lagu leeyahay yacni ilow baa ku dhacay ama yacni garashadii baa ka tagtay ama xasuustii baa ka luntay ama qofkaas yacni xanuun baa maskaxda kaga dhacay subxaanallaah Allah subxaanahu wa ta'ala intuu hayana ka caafiyo inaga haynaga badbaadiyo aad bay inoogu badan tahay meel ban maalin ka arkayay yacni qofku 40 ba haduu gaaro inuu halis yahay inuu ku dhaco xanuunka yacni maskaxda tagsiya ee qofku maartay wax kasta ilaa waayo xataa ehelkiisa ilaa waayo taas waa ta saddexaad ta afraad waxay yiraahdaan waxay fududeysaa foosha gabadha markay soo dhaweyso haday cunto ay ilmaha uurka soo dhaweyso foosha way fududeysaa faa'iidada shanaad waxa weeyaan waxay u fiican tahay timaha daadanaya qofka timirta badsada way istaagaan bay yiraahdaan marka timuhu ma daataan timuhu marka aad bay ugu wanaagsantahay haday timahaagu daadanayaan ama timuhu ka go'ayaan inta badan timirta isla ogow ta lixaad waxay yiraahdeen aragga indhaha timirtu aad bay u wanaagsantahay aragga indhaha inta imika waxaynu arkaynaa intaasoo dhakhtar baa timo indha fiiqa intaasoo dhakhtar baa timo indha hagaajinaysa intaasoo dhakhtar baa timo ilmo yar oo waxaad arkaysaa 5 jir 6 jir ama 4 jiraba oo kiyaala xidhan
waxaad arkaysaa 40 jirkii oo ka yaala xidhan, waxaad arkaysaa 20 jirkii oo ka yaala xidhan, waxaad arkaysaa 100 jirkii oo ka yaala xidhan. yacni gebigeena waxaad moodaa araggeena inuu imika subxaanallaahi aad iyo aad iyo aad ummadda araggeedu waxa ku dhibaato badan u gaadhay. marka haddii ilmuhu markuu yar yahayna aad timirta siiso ood ku abaabiso, adigaagan weyna maalintii subaxii 2 xabo 3 xabo 4 xabo 5 xabo aad iska cunto, aragga aad bay waxaan ku ugu fiicantay maasha Allah timirta qofka badsada. in rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam cuntadu cunayay dib haddaynu u fikirro waxa ku jira cilmi aad u badan. maxaa loo jeclaa, maxaa loo badsanayay, maxaa loo cunayay, cilmi baa ku jira dib ha loogu noqdo. marka araggana way u fiican tahay. ta kale waxa qurxisaa iskiinka. haddaad cuntana iskiinkaaga maasha Allah way qurxisaa. haddii korka laga marsadana sidii waqtiyo dheer dadku sameynayeen, waayo timirtu waxay ahayd dhirta u badan ee yacni lagu nadiifinayay jirka ama lagu qurxinayay gaar ahaan dumarka. imika haddaad Soomaaliya kale eegto waqtiyadii hore dadku aanay haysan jirin make-upkan iyo waxaan ismarmarinayaan, waxay sameyn jireen geedkan timirta iyo huruuda iyo qasilka, waxyaabahaas la isku dari jiray, waxyaabahaas la marin jiray hablaha xilliga ay arooska soo dhow yahay. marka maasha Allah tabaaraka raxmaan inantaas markay aroos gelayso waxay ahaan jirtay inan muraayada. inantan may ahaan jirin waxaan ku dhahay 10 minute lagu soo bedelayo make-up waxaan ku laga soo dhigayo de waxaan la garanayn quruxda maasha Allah. haddana markay ka fool dhaqato 10 minute ka bacdi nooc kale noqonaysa. inantan waxa loo soo sameyn jiray qurux maasha Allah tabaaraka raxmaan muddo dheer ay ku joogto. hadhowta markay guriyeysatana saasay ku sii wadan jirto, mar walba muraayad bay inantaas soo haan jirtay. marka aad bay iskiinka run ahaantii ugu fiicantay timirto. haddaad cunto na way ka soo baxaysaa oo ku qurxinaysaa. haddii aynu sidii Soomaalida ula dhaqanayno maasha Allah jirkeena qurxinana waa cuntooyinka yacni jirka maasha Allah nadiifiya. waxa weeyaan bay yiraahdeen cuntooyinka da'da ka hortaga la dagaalama. waxa jira cuntooyin dadka gabow iyo cimri degdeg ku rida iyo cuntooyin jirka qurxiya oo qofku mar walba yaraado. marka iyadu waxay ka mid tahay cuntooyinka mar walba qofka jirkiisa yareynaya ee qurxinaya ee wanaajinaya aad bay u wanaagsan tahay. waxay kaloo ay waxa yiraahdeen ay ka dawo tahay kansarka. ilaahay subxaanahu wa ta'aala hay naga badbaadiyo. xanuunkaas aad iyo aad iyo aad iyo aad bad moodaa inuu adduunyada ugu badan yahay. boqolkiiba maalin ayaa barnaamij meelaan joognay laga hadlayo waxa la yiri yacni wadamada ka mid ah ayaa la yiri dadka jooga 13 qof ee meel maraayaba waxa la yiri hal qof baa qaba xanuunka la yiraahdo bowel cancerka. waa kansalka caloosha ku dhaca ama xiidmaha. 13 qofba ee meel maraayaba hal qof baa qaba. waa wadanka Australia weeyaan. marka Australia iyo New Zealand bay dhahaan waa wadamada ugu sareeya xanuunka bowel cancerka. marka waxa inta badan de xanuunada keenaysa rasuulkan calayhi salaam inoo sheegay waa calool istaaga yacni. marka caloosha timirtu waxyaabo yacni aad ugu wanaagsan weeyaan. marka inay aad loo badsadaa wanaagsan. waliba dadka wadamadan joogo kale aad ka looga digay bacdaba sidan khubarada caafimaadkuna timirta maasha Allah wanaagan badan ku sheegayaan. wadankana lagu sheegayo xanuunku inuu heer ka maraayo in mar walbana la istijaabiyo oo waliba marka da'da loogu talagalay tijaabada la gaadho oo la soo tijaabiyo dhaqaatiirta loo tago. timirtana la cuno aad bay wanaagsan tahay. halkaan in yar dhixgaliya gabar baa maalin waxay tiri wadamada waxa la soo diraa yacni boqos yar oo qofku markuu 50 jir gaadho la odhanayo iska soo tijaabi xanuunka kansalka ku dhaca xiidmaha. marka gabadha maanta wax inuu barnaamijka ka hadlaysaa waxay tiri nin baa loo diray 3 jeer boqoska 50 jir buu gaaray 3 jeer baa loo diray. wuxuu ahaa qof yacni de aan eegin. marka waxay mar walba uu qaadaa uu iska tuuraayo. mar walba uu qaadaa uu tuuraayo. ka bacdi markii dambe ninka uu xanuustay dhakhtarku tagay waxa lagu yiri waxa ku haya xanuunka kansalka ku dhaca xiidmaha. waxaanu ku marayaa yacni marxaladii 3aad. waxba yacni way yarata waxa laga qabtaa. marxaladda afraad qofka haduu gaaro markay dhaqaatiirtu tirada waxba laga qaban karo. marxaladii 3aad waxay tahay haduu 3 jeer ba istijaabin lahaa laga yaabaa in markii horeysay la ogaan lahaa. marka taa lafteedu way wanaagsan tahay in dhaqaatiirta la oo marka gaadho wixii lagu soo diro ama lagu raahdo iskoola soo tali yacni lafteeda aad tagto ood eegto oo talada caafimaadka la qaato. waayo adduunyadii horeyna ogeyn maaha. dadkuna dadkii hogeyreyna ogeyn maaha. caafimaadkii horeyna ogeyn maaha. hawadii horeyna ogeyn maaha. way idinka arkaya qaaca iyo qiiqa iyo waxaan ku
dhibaatada iyo waxa ka gaarigu sii deynayo qiiqa hubku sii deynayo iyo qiiqa technologygu sii deynayo wixiiba waxaan ku ka wada badanayo subxaanallahi hawadii. markaas ta u dambaysayna soo qaadanayna waxa weeyaan faa'iidada timirtu leedahay waxa weeye waxay faa'iido u leedahay qofka yacni macaanka qaba. waayo waxaynu ognahay qofka marka macaankiisu dhaca baa layidhi inuu qofku u baahanayo markaa macaan kor soo qaado sonkortiisa ciirtay. marka hadduu qofku mar walba timir yar jeebka iskaga wato marka arko in macaankiisu dhacayaba oo xabad yar saafka u geliyo waxyaaba u badan ee markiiba hore u soo celiyo macaankay ka mid tahay. waxaanay ka wanaagsan tahay qofka aan markaa alla subxaana watacaala macaanka ka badbaadiyo xanuunka ah halku sonkor ka isticmaali lahaa inuu timirka isticmaala 100% uga wanaagsan. waxaan idinku qaban doonaa haddii lahayd ma clipkan ama videogan waxaan idinku sii daba qaban doonaa video kale oo aan kaga hadlayo caano iyo timir iyo geedka la jooska iyo qorfaha oo la isku samaynayo aad bay run ahaantii caafimaad badan yihiin. afarta geedna ma kala dhacaan hadday caanaatay caafimaadkeeda iyo hadday timirta tahay ka soo sheekeynayna imika geedka jooska la yiraahdo isna aad ma sha Allah caafimaadkiisu fiican yahay yani waxyaabaha culimada caafimaadku ka qoreen mar baan idin soo gaabin doona haddii lahayd ma dhowr qodob idin ku soo ururin. geedka qorofalka oo kale isaguna aad iyo aad loo amaanay isagana insha Allah mar baan ku soo ururin doona haddii lahayd ma waxay culimada caafimaadku ka tiri. marka 10ka xaaladood aynu hadda soo qaadanayno maanta ku soo koobayna haddii lahayd ma faa'iidada timirta. haddana insha Allah tacaala waxaad la socotaa videoga labaad ee ku daba qabanayo videogan waayo waqti ma hayna rabadaantii bayna haysa waxaan idinkaga tegayaa la socod wanaagsan la dham ma sha Allah walaalayaal waa kan juuskeeni aan sheegay leenaga soo codsaday rabadaantan aynu ugu talagalay saan idin soo sheegay waa afarkeeda aad u qiimo badan mid aragga indhaha soo celiya mid haraadka biyo saynu inagu Soomaalidu isticmaalo ma sha Allah calciumkaaga iyo waxaan ku tamartaada iyo wax walbana kor u qaadaya iyo laba geed oo kale iyaguna dawaa ma sha Allah tabaaraka raxmaan afartaas aynu isku daraynaa. halkan waxaan ku haystaa igu jira halkan 200 gram oo ah timir. halkan waxa igu jira 4 koob oo ah ciirta haddii aad haysato caano fadhiga yoogadka fadhiya waxaad soo qaadanaysaa biyo ka bacdina ciirtaad weel ku shubaysaa aad ku qiyaasanayso biyahaad ku daraysaa waxaad ka dhigaysaa sidii ciirtii wadankeena oo kale. inagu Soomaaliya ciir markaynu raahno way jilicsantahay run ahaan maaha ma fadhido marka anigu waxaan ka dhigay qaabkii Soomaaliya ciirta loo loolan jiray ama ciirteena subaka kala bixi jiray siday ahaan jirtay sidii oo kale aan ka dhigay waayo ma fadhido ciirteena inagu waa ciir socota ma sha Allah. halkan waxaan ku haystaa geed kale yiraahdo English nutmeg ba ku qoran laakiin inagu juice baynu rahnaa. waxaan ku daraa xalwada waxa kale oo lagu daraa unsiga waa geed aad u caafimaad badan run ahaantii xalwadana aad u udgooneeyo ma sha Allah tabaaraka raxmaan. geedkana waan haystaa waan u baahnahay. halkan waxaan ku haystaa qorfe ama qorofal ama maxay ahayd cinnamon haddaad xagga English eegto. geedkan isna caafimaadkiisa haddaad internet ka baadhaan ma sha Allah tabaaraka raxmaan lama soo koobi karo labadan geedba aad bay u fiican yihiin. timirta waa ogteen caafimaadkeeda waxaan arkayaa ma sha Allah كليب مالين شيخ در kaga sheekeynaya kaalay arag ma sha Allah tabaaraka raxmaan inta faa'iido ku jirta waxaan ku dhahay Allah subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa inoo soo diray markuu inoo dooray yani ajiib bay lahayd ma sha Allah tabaaraka raxmaan geedka timirtu marka ayana halkan timirta 200 gram ba yaala. haddaba ciirta iyada halkaas aan kaga tagayaa jooskuna halkan uu yoolaya qorfuhuna uu yoolaya maxaan sameeynaa marka horeysa timirta ayaan digsi ku shubanayaa. digsiga markaan ku shubto ka bacdina waxaynu ku daraynaa biyo marka hadda timirteena horta hagaajisanayna. hadda waxaan noo soo qaaday timirtii digsigii baan inoogu soo shubay. digsiga markaan noogu soo shubay koobkii wadankeena maqaaxiya shaah laga cabi jiray faraajiin baynu odhan jiray koobkii kale ma sha Allah ayaan hayaa. koobka mugiyo biyo ah ayaan ku darayaa. koobka mugiyo biyo markaan ku daro ka bacdina waxaan saarayaa dabka waxaan sugayaa waqti bay qaadanaysaa markaa intay karayso timirtu. haddii kale timirtu saasada istaahda shiid ma ku sameynayso macaan badan. ta kale timirtan caanaha qura kuma darsanayno shaahaynu ku darsan karaa sharaabyada kale aynu ku darsan karaa boorajko kale haddaad cunayso dushaad kaga darsan kartaa waayo waa macaan caafimaad leh
qamandida suxuurta ama galeyda suxuurta ama soorta kolba waxaad cuni karto suxuurtaad ku darsan kartaa qaab kale loogu sameeyo macaankan si doona sabaayado kale loogu sameeyo timirtan waxyaabo badan baa loo isticmaalaa marka qaabkan loo sameeyo marka insha Allah hadda dabkaynu saarayna hadda timirtii baan dabkayno saaray waa taa timirtii waa 200 gram 200 gram baad soo qaadanaysaa 200 gram waxa weeyaan waa nusrodol 50 gram laga reebay nusrodolka marka 5 meelood loo qaybiyo 4 meelood kamida weeyaan way dadka qaar baa laga yaabaa 200 gram inay fahmi waayaan marka nusrodolka timire markaad soo iibsato eed 5 meelood u qaybiso waa meel kamida laakiin la soco timirtan aniga laf male timirtu markay lafta leedahay miisaanka laftuna miisaan bay sameynaysaa marka timirta markaad lafta ka saarto ka bacdi ayaad miisaamanaysaa hadda waa taa ma sha Allah tabaaraka raxmaan saasay inoogu soo karaysaa waqti bay qaadanaysaa yar oo xoogaaya laakiin waxaan rajeynayaa insha Allah taala inaydu kaga reysan doonto oo aynu kaga reysan doono sonkorta dadkeena aafaysay waayo waxaad maqlaysaa hebel macaan baa dilay heblaaye macaan baa dilay heblaaye kanay tahay waxaana wax badan inta badan kama qaadno waxa weeyaan waa sonkortuna bina aadan sidaynu u cunno ama Soomaaliya u cunto u cuna adduunyada korkeeda maba jira malaha uma maleynayno inuu jiro maalin baa sonkor iyo xabal laga sheekeynaya gabadh marka macallimada waxaan ku oray anagu bishii dadka qaar waxay cunaan 50 gram kadbad qaar waxay cunaan maxay haytay 50 gram ah 50 kilogram sorry 50 kilo maxay tahay 50 kilo cunaan dadka qaar waxay cunaan familiyada qaar waxay cunaan maxay tahay 20 kilo familiyada qaar waxay cunaan oo ama isticmaalaan sonkorta 12 kilo iyo bad rufuca halkeen oran jiray waayo reerayna arkayna kadbad qaata reerayna arkayna shub qaata reerayna arkayna rufuc qaata wallahi way yaabtay yaa ma bina aadan ba inta cunayo sonkor bishii haabaan ku oray wax doomaba noolidine maxaan noolahay gabigeenu Itoobiya inuu tubanay hebelmee dhakhtar Itoobiya buu qabtay heblaayemeeda Itoobiya qabatay maxaa inta badan inagu dhibaaya waxa weeye waa macaankan bilaa kantaroolka aynaan garanayn ilmihii baa dhalanaayo markuu sidaa u dhashay la faxa loo kariyo sonkor baa laga buuxinaya isagoo yar baa laga yaabaa hadayna carruurteenu aan cidoogeyn macaan wada qabaan carruurteenu qofkii weynaaba wuxuu ka oranayaa koob sonkor ay koob shaahaysi sonkor baa laga soo buuxinaya kii dhalinyarada haaba cabaaya waxaydu ku qof kasta maaba inooba kala reebinba waxaan ku maxay dhahdaan la yiraahdaan gabigeeda magaceedaba waxa weeyaan waa dilaaga aamusan sonkortu ma ogid aad inay ku dilayso ma ogaan inay dilayso laakiin waynu ka dhergaynaa waynu cunaynaa waa cabaynaa bariis baa la karinayaa cad waa laga buuxinayaa caana la qasaya ciira waa laga buuxinayaa sharaab baa la sameysanayaa waa laga buuxinayaa waxa la soo qaadanaya la siibsanay sharaabiyadan maxartay ah soodaha inta ku jirta wad quusanaysa daadisadeera kooka tolo maalin dhoweetay mise ahayd bal insha Allah maalin baan soo qori doona hadii lahayd meel class on tagaan ku arkay oo mid walba aan soo sawiro doona sawirka soo qaad doona mid walba daasad walba inta sonkor ay ku jirta intay bac yar ku shubeen ayay ku hoos dhajiyeen wallahi waxaan ku dhinaad u hamooneyn inaad ka cabto ma ahaan inaad cabto ma ahaan xataa inaad agmarto waxaad rasanaaw tano ma aha wada raasaya tan waa marka walaalayaalow timirtan hadaynu ku bedelano waxyaabo badan bay insha Allah taala iska keen bedeli kara shaahaad ku darsanaysaa saan idin sheegay raashinkaynu ku darsanaynaa wax badan ba keegagaynu ku samaysan karaa waxyaabo badan bay naga caawinaysaa marka waynu yara sugaynaa insha Allah taala intay inoo karayso xooga marka soo yara jilcdaba waxaan sameynaynaa saasanu yara burburinayaa qaadada qoriga baan ku isticmaalayaa waayo qaadada birti inta badan ma wanaagsana weelka birta uma wanaagsana labadii birood way soqayaan laakiin qaadada yara fandaalka yar hadii xataa aanad ka helin wadankeena magaalooyinka gudahooda hadii inta baadiyaha dadka jooga farshaxanka la hadashaa taa fandaal iyo soo qora qaala yarag ma sha Allah tabaaraka raxmaan isma bedelayo juciyo jactoona ma oranayo waana caafimaad socda weelkana wax allaale wuxuu ka yeelaya ma jiro suuda markii guntu ka dhacaysay markii xukumaayay waxaan gooli birbir lagu xuqaaya waa laga reysanaya marka fandaalka ma sha Allah tabaaraka raxmaan aad haysato marka saasaynu u soo burburinaynaa kolba waa dabooleynaa iskaga yara tagaynaa waa ku soo noqonaynaa إن شاء الله وقت بقى نيسا لكن سو حرجيني 10 كفايدان مانتا وقفكي سنكر عنابك كجتايو إني نقنت وانت بإذن الله تعالى وانكسر ولا دبكي عاد بانو جابيي waayo inay waxaan rabaa uumigaas burburiyo hadii kale waxay noqonaysaa inta biyaha hore kaaga guriso ayuu digsigu ka gubanaya laakiin imku waxay noqonaysaa ma sha Allah raasuq ya way isku rasiimaysaa
rasiimkan cabaa ku raaji dabko haraasu qiraranka iyo saar weeyaan xaaladeedu ma sha Allah waa aragtaan waxay noqonaysaa sidii xalwada oo kale saasad u burburinaysaa kolba haddaad doonto marbaad aad kiilo wada samaysanaysaa markaad kiilo samaysato eed biyaha ka dhamayso eed dhag ka dhigto weel baad ku ridanaysaa dhag daboolkun baad xidhanaysaa maalinba qaadadaada yaraad wax ku darayso baad kala soo baxaysaa qamadi ku darsataya waxaan ku bariis ku darsataya ma sha Allah caana leh kee ku samaysataya wax allaale waxay diidaysaa ma jirto tiyo saan idin sheegay waxyaabo badan lagu sameeyay insha Allah taala waan idin soo dayn doonaa hadii la hayd mula dhex gelinayo timirtu waa geed aad u cajiib leh marka saasaynu ku soo wadaynaa ilaa intay noqonayso waxaad ku dhig waxaan laga sheekaynay dabkuna had daqiiqa yar bay samaynaysaa dabku aad burun ahaantii ugu gaaban yahay marka haddaad burjuka ku karinayso dabka ka yaree haddaad weliba arkayso inay xoog kaaga karayso dabka dushiisa wax sii dhig daasad iyo wax ku daa dabka ka bacdina iyada dul saar hadhowto marka hore ku karto kaale arag ma sha Allah tabaaraka raxmaan say ku noqonayso marka saasaynu ku soo dhameystirayna waynu ku soo noqonay walaalayaal hadaba ma sha Allah kolba waan inoo joojinayaa way hadii kale fiidiyowga aad u dheeraanaya ana waxa rabaa in ma sha Allah u barataan laakiin bahashano de waa xalwad yar laakiin waa xalwad aan garbaana ku xanuujinayn markaad walaaqaysid karinayso waana xalwad caafimaad leh hadda waa aragtaan ma sha Allah way noo soo adkaanaysaa laakiin waa inay noqotaa maxaa ka galay waa inay burburtaa seedaha iyo hilibka timirtu seedna way leedahay hilibna way leedahay ma ogtihiin ninkii yaqaanee ninkii xidhay ayaa xidhaya ninkii cunay way iska cunay timirun laakiin ninkii ficaan xidhay waa yaqaanaa timirtu inay seedna leedahay hilibna leedahay ficaanada marka la sameynayana seedaha laga reebo hadii kale waxaan ku duqda seedaha raacisaa waxay noqotaa saddex magac loo bixiyaa ma ka badan Allah sahlo way silaaliya mala saddex soo raba ma hay Allah sahli marka waxaan ku seeda iyo hilibka ayaynu saa isugu burburinaynaa saasaynu walaaqaynaa ilaa intay ka noqonayso ma sha Allah wax yaani lagama sheekeeyaan waragtaan imka say tahay waynu wadaynaa ta kale aan idinka ilaaway timirtan waxayna ka qayb qaadataa qurxinta jirka waa waxyaabaha ugu fiican ee haddaad rabto yaani iscadayn dabiiciya iscadayn hadda maaha kiimikala oo 3 cisho ku cadaw waxaad u eegata Faransiis ama Jarmal ama Ingiriis taam uma jeednayno haddaad rabto iscadayn dabiiciya timirtaas ayaad isla ogaanaysaa naftaada markaad rabto inaad shaqayso markaad rabto inaad waxaan ku meel bacada fadhiisato oo dhar iyo wax ku dhaqdo in yar iyo umbaad soo qaadanaysaa caana yar baad ugu burburinaysaa qasilkaaga yar ku tarso waxaan ku dhac isku soo si ma sha Allah tabaaraka raxmaan waadi hore waxa jiray hablu demay jirin makeup kan iyo waxyaabahan waxaan ku inanta imka say kuula joogto lagaga soo dhigayun waxaanad garanayn be waagi hore waxa la yiraahdaa habla markay arooska yihiin weegagba taa lagu sii xashi jiray timirta cusburka qasilka huruuda waxyaabahaas lagu sii xashi jiray baa waxa la jiraa habla wal xashaya wala yaani wala nadiifinaya weeyaan waxa la habeenka arooska waxa soo bixi jirtay inantii ma sha Allah tabaaraka raxmaad wadana soo wartan xagga laga keenay maxaa la dhalay quruxda inaga laakiin si waxaan ku uri 20 minute ayaa inta laga soo buuxiyo daqiiq makeup yiraahdeen bootar iyo bilaayo xal isku soo walaaqay ayay waxaan ku uri musqusha haday gashay ka soo fool dhaqato tiiba maaha waxa la soo warmajin baa musqusha kaaga soo baxay laakiin waxyaabahan dabiiciga ah wanaagsan ma ogtahay ma sha Allah inuu qofku waxaan ku isku cadeeyo kaale arag iskaga dhigo marka saasaynu wadaynaa waarkaysan ma sha Allah tabaaraka raxmaan waxa iska qaban saasaynu wadaynaa hadana waynu dabooleynaa oo iskaga tagaynaa oo ku soo noqonaynaa ma sha Allah wata walaalayaal hadda wax yar xoogaa baynu harayaan badnayn laakiin da waxay noqotay shuura sharla sheekha toosis ma sha Allah kolba waxaan sameynaysaa sanu yar burburinayaa waayo waxaan rabaa inay seedo baabado waysa isugu milanto kaalay arag hadhowna iyadii caanaha isku basrirsanaynaa iyo labadii geed kale caafimaadka ahaa laakiin timirta waxaan rabaa inta ii hadho kale inaan yaani meel dhigto oo shaaho kale ku darsado cabitaano kale hadan sameeyay ku darsado saan idin sheegay raashinka kale aan dadka macaanka jecel baan ma sha Allah macaanka cuna
marka waa inaad macaan healthy raadsataa waayo qofka banaadamku inuu isbarto weeyaan moogtahay jirkiisa inuu barto haddaad waxaan jeceshahay wixii waxaan waxba ku yeelan waa inaad raadsataa laakiin waxaa jira dadaan iyagu macaanka jeclayn laakiin haddaad tahay qof macaanka cuna ha isku day inaad buskud iyo nacnac iyo waxaan ku sharaab sonkor ka buuxdo meel lagu soo sameeyay inaad garanay inaad ka dhirigtay wax caafimaad loo og tahay inaan waxba ku yeelayno macaan wixiina kuu buuxinaya waa inaad isticmaashaa marka qamandidoo kale inaan ku darsadaan rabaa suxuurta haddii la haydo ama galeyda ama soorta waxyaabo kale badan oo saan idin sheegaan ku sameynayna idin tuso dawayna hadan huurinaynaayo waynu ka tagaynaa waqti bay qaadanaysaa laakiin kolba gurigaaga aad ka shaqaysanaya ayuun baad ku soo noqonaysaa waayo dabka aad uga gaaban aragtaan kaliya uumi uun dareemaysaa laakiin ma sameynayso in yacni si kale ay noqoto hadda waynu soo dhawdhawday maasha Allah biyaheedu aad bay u yar run ahaantii wada sayna ugu soo qaadmaysa waxaan maqli jiray xalwada marka la gadiyayo waa inay soo duubtaa timirtana yar bay u jirtaa hadda waxa weeyaan in yar ka bacdi hadii la haydo waan ka soo qaadanaynaa ka bacdina waxaan ku sameysanaynaa qaabkan sharaabkeena ugu darsanayno hagaajinayna hadii la haydo waa yar walaaqaya in yar laakiin fadlan waa inaan digsiga guntiisa aad ka warhaysa digsigaaga guntiisa waa inay soo cadaataa aan filayna halka arkaysaan digsigaaga guntiisa waa inay soo cadaataa haddii kale ka madoobaato waxay ka bixinaysaa qiiq iyo ur qarmoon bay ka sameynaysaa marka digsigaad ku karinayso waa inaanay qabsanin hadhowta waxaan ku jirkaaga maasha Allah calooshaada saasay soo nadiifinaysaa geedkan jirkaaga korka hadaad mariso way ku nadiifinaysaa kale arag hadda ingoona geesta isugu soo wada riixay digsiga inay yacni timiruun ku taaltaala ma ogiye xabad ikumay dhegin waayo dabkan u gaabiyey taasna iska ogow inta dab dheer ku bahalayso iyo waxaan kurtiyo sidii isu wada haysataa aanay dhinacna ka gubanin oonay ka madoobaanin dhinacna qaydin ka ahaanin iska ilaali fadlan hadda waa maasha Allah sanqar bay samaysay waayo biyo kuma jiraan inta gunteeda waxa allaala wax biyo ku jira ma jiraan waa timirtiyo sideediya ma qaadada soo wareejinayo kama dhacayso waayo male wax biyaha ba yaraatay timirtiyo sideedii bay imka qabsatay hadda waxaan sameeyay waan ka baqtiyanayaa dabka markaan ka baqtiyo waxaan iskaga maqnaanayaa ilaa 20 daqiiqo meelaha inta ii qaboobayso dhan waan iskaga maqnaanayaa markay qabowdo ayaynu isku soo noqonaynaa maasha Allah walaalayaal timirtiina wataa waan ka soo qaaday dabka waxaan inoogu ridayaa madiimad ka yar waxay noqotay maasha Allah hadii lagu dhufto baan ku oray oo kugu dhagaysaa marka timir markaad karinayso disaa ku noqon weydo timir maad karin biyo ka leeleeday wali iska hagaaji madiimad ka yar baan ku wada ridayaa waayo waa anidii sheeydin ku waxa rabaa inaan dhowr jeer u qaybsada hadii la haydo marka adigu hadaad madiimad yar haysato hadaad caag yar haysato dhaq ku siiso halkaaga waxaan ku jam xeero timira ku taala digsigana wataa guntiisa kaliya waan ku kariyay ma ogi laakiin si hal meel kama qabsan hal meel haday ka qabsato digsigaaga timirtu qabsato timirtaada saanu ma karinaysid iska hubi halkan hadaba inooga bilaabmaya juicekeeni ama sharaabkeena saynu u sameysanaynay maxaynu haysanaa halkan waxaan ku soo shubay qaadada yar ee shaaha lagu sonkorta lagu walaaqdo caruurtana wax lagu siisto teaspoon baa lagu dhahdaa afka qalaad halfkeed oo ah juice madiimadkan ku shubanayaa madiimadka guntiisa ku shubanayaa dhalada waayo uma baahnid mashiin waxaan rabaa leyrka laftiisa inaynu marxino hadii la haydmo kaasu qaadada barkiibu ahaa juiceku oo ridqan halkan waxaan haystaa qaadada yar ee shaaha mugeed oo ah qorfa shiidan iyaduna ama qorofal kolba saad u taqaano taana yana waan ku daray inta markaynu sugayno waxaan soo qaadanayaa timirtii macaanka aday kugu xidhan tahay intaad ku darsanayso dadka qaar baa hadii doonaan malab ku sii korisanayo laakiin uma baahnid qaadadii wataa qaadadaynu raashinka ku cunno koow iyadoo aad u buuxda labadeed baan ku shubayaa anuu ka badan halkaas markaa inoo socotaa maasha Allah qaadada labadeedii waxaan ku shubay timiraan ku soo riday madiimadka ama baaquliga kolba saad u taqaano
iyo hal qaado ah maxay tahay 1 teaspoon ama qaadadayna caruurta wax ku siino muggeed oo qorofl shiidan iyo qaadada yar caruurta wax ku siino ama teaspoonka la yiraahdo halfkeed oo ah juice bahalka xalwada lagu sameeyo hadda caaniba marka halkan inoo yaala caanaha marka waxaan sameynayaa in yar baan ugu shubayaa waan ku qasayaa hadii la haydmo saasayna ku wadaynaa in yar caana baan ku daray saasayna marka ugu qasaynaa waayo mashiinka laftiisa waxyaabaha markaad ka maarmi karaysa inaad iskaga tagtaa wanaagsan moogtahay mashiinka laftiisa hawlihiisu leeyahay qarashkiisu leeyahay ma hawl yara marka Afrika oo kale waliba dadka jooga leedku aad buu qaali ugu yar ahaantii hadda waxaan ku inta suuqa tagto bahasha yar kale iska soo iibsato kaale yarag hadhowtan waxaynu sameynaynaa waynu miiraynaa ama waynu shaqshaqaynaa ama waynu shaandhaynaa kolba saad u taqaano hadda saasaan oranayaa cabaar baan ka ku burburinayaa saasaan ku qasaya kolba in yar baynu ku daraynaa way soo cadeynayaan xataa kolba moogtay ma sha Allah ta kale waxaan hore idinku sheegay haddaad rabto inaad wax samayso cabitaan samayso wax isqaadan karaa la isku sameeyaa kalar ahaan iyo dhadhan ahaanba haddii kale wuxuu noqonayaa wixii hadda tahay casaan iyo guduud madow baan isku darayaa ama guduud iyo madow waxay noqonaysaa kalar kale oo la garanayn laakiin imka hadda 4 kalar aynu isticmaalaa 3 kalar waa brown ama bunni kolba saad u taqaano waxay noo weheliyaa waa caanaha weeyaan saas u qas walaaq isu dhex geli inta ma sha Allah caano ku fududaanayaan macaankuna waan ku sheegay adoo ku xiran yahay macaanku waa adiga iyo saad macaan jeceshay haddaad aragtay inuu macaanku ka yar yahay wax caafimaad ku sii kordhiso inkastoo anigu isleeyahay ma sha Allah inaaf bay ku tahay intaan sidii anaga xaqayga ila tahay waana idin sheegay inaan anigu macaanka aad u cuno يعني markaan idin leeyahay macaanka aad baan u cunaa jirkayga ayaa yani jirka macaanka jecel waayo binaayadanka qofna waa jecel qofna ma jecelasan hore idin ku sheegay markaas oo kale marka wax caafimaad la raadsada oo hadhowto maartay dhibaatadeeda iyo wareerkeeda lahayn in yar baad ku daraysaa hadii kale waxa laga yaabaa inuu ku furfurmi waayo kolba arkaysan wuu soo nadiifoobaya ma sha Allah wuxuu noqonayaa yani cadaan buu soo dhawaanayaa waxa ka soo baahay maartay bunigii badnaa ama brownki saayidka ahaa ma sha Allah walaalayaal hadeerto waa dhagdhag waxaan sameeynaa waynu soo miireynaa hadeerto waxa la waxaanu ka reebaynaa timirta maartay burburkeedo dhan marka caanaha saafiya oo macaan baynu la soo baxaynaa hadii la haydmo halkana waxay noogu jirtaa timirteena intiino hadhay aan ku xareynaya hadii la haydmo marka waan soo miireynaa waa isku soo noqon ma sha Allah walaalayaal ugu dambeyn waa ka sida inoo soo baxay cabitaankeeni keen jaa ku soo shubanay iyo keen bakeeri ku soo shubanayba hadaba bisha Ramadaan san uga faa'iideyso waayo adaga waxay mar walba qofka dan ugu jirtaa Soomaaliya ama qofka bini'aadanka xilliga kale joogaba wixii caafimaadkiisa u wanaagsan laakiin haddii aad ka dheeragto ila taango ama leena ama camba ah ama maxay tahay waxay doonaan ba laga sameeyo ogow inta badan inay tahay sonkor hataa adigu haddaanad akhri karanayn oo akhrisku ku dhibaayo waayo dadku waxa jira in iskuul tagtay iyo inaan tagin qof jaanis u helay iskuul iyo qof aan helin marka hadduu ku dhibaayo fadlan waxaad samaysaa caruurta u dhiibo haddaad hooyo tahay qofkii akhriga garanayo u dhiibo iska akhri intaanad waxaan cunin waayo hadhowto dhibaatadeeday leedahay kharash xagaan ka keenaan dhakhtar ku tagayo halkaan maraa iyo dhakhtarkee wanaagsan iyo dhib hadhow ka badan tan buu ku gelinayaa marka Allah subhanahu wa ta'ala waxaynu weydiisanaynaa inuu caafimaadka Allah subhanahu wa ta'ala isaga ina siiyay oo inoo badbaadiyo Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay idankiisa kuwi caafimaad iyo cimri dheer insha Allah ta'ala ku waarana Allah subhanahu wa ta'ala cimri khayr qabo cimri walba lama weydiistay cimri barakaysan Allah subhanahu wa ta'ala siiyana haynaga dhigo bisha Ramadaan Allah subhanahu wa ta'ala kuwi markay timaado ka faa'iideystay Allah subhanahu wa ta'ala u gaarsiiyana haynaga dhigo waayo intaas qof bishii hore bay nala soontaan maanta inala soomin hilibkoodiina ciid cunto inaga hooseeya maanta marka Allah subhanahu wa ta'ala haynaga dhigo kuwi ka faa'iideysta insha Allah ta'ala intaynu dib u kulmayno waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh